الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. مركبات waxaan u tacsiinina anigu ku hadlayo afka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed askartii mujaahidiinta ahay ee naftooda u huray difaacidda dalkeena hooyo iyo diinta islaamka oo dad wax magarata ah ay ku xasuuqeen degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe deegaan hoos yimaado. waxaan leenahay marka koobaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariista jannaha siiyo. waxaan rabnaa askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed amba askarta qarankaba muhiimad gaar ah ay dalkan u leeyihiin dadka Soomaaliyeed. waxaan rabnaa inaan halkan fariin ugu dirno marka koobaad aan u tacsiino ciidankii la xasuuqay, marka xigtana aan fariin u dirno dadkii gacan ku dhiglayaasha ahay oo dhibaatada intaas la egeystay oo xasuuqa ah inaan dhahno kama dambeyn doontaan Ilaahay idinkiis. waxaanan idin soo qaban doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaan idin horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh waajibaadkiina waajibkiina la gudan doonaa hadii alla idmo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay walakum fil qisaasi hayaatun, qisaaska waxa in kugu sugnaada nolol bacda ma qofku og yahay hadduu wax dilo in la dilaayo qofka ma ku dhiiri karo inuu wax dilo. marka waxaan leenahay qisaas ayaad in sugi doontaa hadii alla idmo. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada qalabkiisa qeybiska kala duwan wuxuu baadigoob ugu jiraa sida uu gacanta ugu dhigi lahaay gacan ku dhiglayaashii xasuuqay oo waxba aan ka duwaneyn khawaarijta al-Habaab. waxaan leenahay haddii aad shacab aheedeen oo arrimo kala maaganeedeen iyo haddii khawaarijta gadaal in ka soo dirtay intaba annaga waxaan noo tihiin dad cadow ah, sababtoo ah qof muslim ah oo miskiin ah oo socdo oo difaaci dalkiisa asagoo ku jiro booqasho u socdo inaad wado u gasho waxba kama duwanaanaysid khawaarijta al-Habaab dadka dhibaateynayso. nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri qofkii qof muslim ah ka taakeen la eg ugu kaalmeeyo daadintiisa dhiigiisa in la daadiyo qiyaamo wuxuu imaanayaa asagoo indhiisa ugu qorantaa ama wajigiisa qofkan wuxuu bari ka yahay naxariista Ilaahay. waxaan idin leenahay marka waxa ka dhalan karo waciidka ku soo arooray dhiig muslim inaad daadisaan oo waliba haddana ciidanka qalabka sida oo xidigtii shanta gees ka koobneed oo Soomaaliya nin u dhaartay oo aan qabyaalad iyo qurun aan shaqo ku lahayn oo shaqadiisa ay ahayd oo kaliya difaacidda dalkeena hooyo inaad aanooyin kale u dishaan ama arrimo kale u dishaan waa nasiib darro. waxaan idin leenahay marka waxay tahay aayadda quraanka Ilaahay wuxuu ku yiri waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. qof mu'min si kasta u dilo abaalmarintiisa waa jahannamo oo ku waaraya Ilaahay oo lacnaday Ilaahay oo carooday Ilaahay wuxuu u diyaariyay cadaab weyn ayuu u diyaariyay. waxaan leenahay marka Ilaahay cadaabtiisana waa idin sugaysaa ciqaabtii iyo awaamirtii madaxda qaranka iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga waa idin sugaysaa. waxaan xoohay adduunkan waxa ku noolaanaysan cabsi iyo argagax haddaad noolaataan oo baxsataan haddii aad dhimataanna aakhiro waxa idin sugaysa ciqaabtii Ilaahay oo quraankiisa ku sheegay. haddii kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si sharaf leh ayagoo waajibkooda gudanaya gacanta in kugu dhigi doono. war Ilaahay in ku dhaariyay ma liibaayay ninkii walaalkiis dilay oo qaabiilahay ma liibaayay markuu walaalkiis Haabiil dilay maxuu ku daba maray. ma ogtihiin qofka walaalka ah oo muslimka ah ama shacab ha noqdo ama ciidan ha noqdo oo aad arrimo kale u dilayso ma ogtahay inay mas'uuliyad darro tahay in qof muslim ah dhiigiisa si sahlan loo daadiyo in halista ma ogtahay. ma ogtahay ninka aad qabiil ahaan u difaacayso haddii guri uu ka dumo inuusan ku dhisi karin aad raadinayso injineer aqoon leh. ma ogtahay caaw hadaa xanuunsato wadnaha ku xanuunaan inaad leedahay doctorka wadnaha ugu fiican ugu aqoonta fiican daawada wadnaha hal ii raadiyo aadan dhahin nin reer hebel hal ii raadiyo. ma ogtahay haddii aad dhimato oo qabri aad gasho in malakaanka su'aalaha ku weydiinayaan aysan ka mid ahayn yaad u dhalatay reer hebel ma difaaci jirtay isku dhahin. war Ilaahay ku dhaariya casriga aan joogno iyo waqtiga aan joogno iyo qarniga aan joogno inaan maanta qabyaalad iyo wax lamid aan abaabulno arrin nasiib darro ah. waxaan idin leenahay marka Ilaahay ka cabsada subxaanahu wa ta'aala dadkii falka noocaas sameeyay cid ka aamusto oo ama wax ka qabo weyso ayadoo awoodana mas'uuliyaddaas adduunkana waa la qaybsanaysaa آخرنا ولا غيب سنة إلهي سبحانه وتعالى القرآن كله كله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واحد قد ورثتان فنان أسيبين ضدك ظلم قسم سجار وأسيبين واحد وقاتان إلهي إنه يهمل عقابك سودانية
xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa anzala allahu biqowmin cadaaban asaaba alcadaaba man kaana fiihim uma bucithuu calaa xasabi acmaalihim haddii ilaahay cadaab uu soo dejinaayo qoomkiisa uu ku soo dejinaayo kiisa wanaagsan iyo kiisa xunba cadaabtaas way asiibaysaa laakiin qof walbaba camalkiisa ayaa maalinta qiyaama lala soo saaraya reer ceelbaraf iyo reer shabeellada dhexaba waxaan leenahay dadka gacan kudhigliyaasha ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed fal noocaas la damcay wax ay nooga duwan yihiin khawaarijta alhawaa ma jiraan dadkaas iska soo qabta waxaad horkeentiin xoohay garsoorka maxkamadda ciidamada waxaad horkeentiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaad iska biryeeshin falka noocaas dadka ku kacay ehelna maahan qaraabana ma ahan dad Soomaaliyeed oo nadiifana ma ahan dadka noocaasana sumcad darro ayay ummadda u soo jiidayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay intii naga geeriyootay oo halkaas lagu xasuuqay Allah u naxariisto kitaabkooda midig Allah ka siiyo waa dad laga gardaran yahay waa dad mujaahidiin ah oo ayagoo mooga Allah dagaalama ayagoo mooga Allah ah oo dalkooda difaacanayo oo fasax ku jiro oo waajibaadka qaranka gudanayo si xaq darro ah loogu dilay dadkaas marka waxaan leenahay Allah u naxariisto gadaashooda Ilaahay nama fidnayo dadkii dilay oo gacan ku dhiglayaasha ah iyo kuwa qariyay iyo kuwa ku faraxsanna waxa la horkeeni doonaa hadii alla idmo maxkamadda waxaana xoohay hortoodana hortiinana waxaad ka arki doontaan ilaa idinkiis ayagiyo duuleysan oo xoohay ka shalaayayo dhibka ay geysteen ayagoo duuleysan oo ka dambeyn doonin ciidamadii sharafta lahaa ee mujaahidiinta ahaa oo naftooda u hibeeyay difaacidda dalkeen hooyo iyo diinta islaamka ayagoo fartoomaya xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahay la in atraktum la aqtulannahum qatla caad wa thamud haddaan haleeli lahay khawaarijta sidii reer caad loo laayo kala ulay lahay dad hamigoodu ahaa inay xoreeyaan dalkeen hooyo hamigoodu ahaa inay ilaaliyaan diinta islaamka hamigoodu ahaa inay difaacaan dadka Soomaaliyeed oo ay qayb ka yihiin dadkii dilay dad difaacanayay ayay ahayn ragga mujaahidiinta ah oo halkaas lagu xasuuqay mar labaad iyo mar saddexaad waxa horkeeni doonaa hadii alla idmo maxkamadda insha Allah waa mahadsantiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh